anigii adagu markasta inagu kaftamayna inoo lagu qabtaa laakiin maanta waxa inoo tahay wadarka mar aan la arago kale aad iyo aad inaba caadi ma dadkiina aad baa idinku xiisay waryaaraheen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jinka naga daawarsan yaa waa sheego travel with Shego sidii doonta baa haato muuqaalkeenu ayaamahan waa naga raagnay caaw maanta waxay nii wadnaa horta guriga hortiisaan isku joognaa waxaan inku qoraxdana ka soo cararaysaan baan anigu diriqi ku helay alxamdulillah waanu sugnaaba cadceeddii maanta u soo baxnay waxaan nii haynaa maanta arrimo badan iyo arrimo aan inaba caadi ahayn waxaa barbarkayga taagan eedaday saaxiibaday looyaradii inaba aan caadi ahayn mataanaan nahay sidii doonta baa haato muuqaalkeenu maanta wuxuu daaran yahay ama aanu ka hadlaynaa waxa weeye hawshii si wanaagsan baa u socotaa xaggay maraysaa telefoonkii horta waanu banadnay waxaan u banadnay si kala ma aha waan yaraha kinay dad baan diiwaan gelinay 10 qof ayaa loo soo jawaabay 50 qof baan sheef garanay oo siifiyadooda qurux badnaayeen 40 baa wali aan loo soo jawaabin 10 kan loo soo jawaabay ways og yihiin halkan bayna ka daawan doonaan Allahumma salli ala Muhammad waxaan telefoonka u hakinay dadkii baa batay meesha waa yaabs xorriyad dadkan xagee ku soo wadaan dadka ma filin kala la wadaa sidii doonta baa haato meesha durdur bay noqotay waxa inoo faahfaahinaya ama inoo qaadaa dhigaya dadkii shaqada ku lahaa anigu shaqada ma lihi soo dhaw xajiyo waryaaraheen waxay idin mar kale soo dhawaada oo kameradooda ka qaatay warniyahow soo dhaw adiga lafta soo dhawdahay inkastoo ka dhacayso oo dadka halkan aad baa leeyahay weydiiya inankan bashaashka ee kula hadalka kula boobaya waayo soo dhawaada waa inankaygiya soo dhawaada maana ka waalayba marka waxaan ku rabaa inaan kuu sheego intaan dadka u jawaabin way dadku sugi la yihiin beenay aras qeyra arkaan aad iyo ma sha Allah waxaad ku tir dhowr jeer baad ku tir waan idin imanaya oo soo socnaa dad badan baa weydiiyay goorma imanaysa Soomaaliya marun bay noqon doontaa hadii la yiraahdo ma sida ku dhaqsaha badan la maalinka ku soo socnaa laakiin maalinta halka ba ka arki doontaan inaan imanayno waxaan rabaa dadka halka sharafta la iga daawanaya ee jecel ana jecelahay ani carrana jecelnahay inaan teleefankii wuxuu noqday yani waan controlkii too much dadkii shaqadaadii buu bisigray marka dadka marmar waxay oranayaan igama qabanaysid say kaaga qabtaa markan 10 adiga la hadlayo markan kandhiga kii kala soo gala kandhiga kii gala marka waxaan mar rabo inaan dadkii ka wada qaado waraaqaha aanan waxbana u sameeynin ka teleefankii waan yar hakiyay arintii meel fiican bay maraysaa hadda sidoo carra sheegay 10 qof ayaan u helnay waraaqaha inaan u sameeyno waxaana weeyaan maaha work permit this one way kala duwan yihiin waxa weeyaan kani waa permanent resident PR card waxa weeyaan skill worker horta waxaan mar kastana waxaan u sheegaa dadka CV-goodu inuu noqdo waa in 2 sanadood oo shaqo aad shaqaynaysay iyo waxaad ku qaadatay degree-gu ishelaan iskeenaan haddaad waxba haynin haddaad CV haysanin amba aanad meel ka shaqaynin amba aanad jaamacad ka soo bixin amba aanad xirfad aqoonin wax walaalkayo walaashay wax ma ku samayn karo habar eedo habar yaro inaabti inaadeer abaayo aboowe general all Somali waxaan idin leeyahay in order in idin sameeyo you have to have maxaan ku shaqo taga carro waa inaan dadkii qanciyaan yiraahdaa ninkan waa nin jaamacad ka soo baxay 2 sanadood uu shaqaynayay intaasoo experience uu qaba you have experience come to me I need people with experience and English is one number 1 aad iyo aad because markan waraaqahan hadda xareeyo dadkii aan u xareeyay waa la hadlayaa interview wal la yeelaya 10 ka imka sii ogaada wala waraysan waxa la leeyahay dee su'aalaha laga weydiinayaa warqadiisan meesha taala ana anigu sii sharxay la leeyahay sugbal aan sii yartaa taabana maxaa marka aniguna leenka markasta waan kula jiraa waxaan ahay waan u turjubaanayaa dadka marka waxaan leeyahay walaalayaashay kulligiin baa wada jecelahay travel with Shego markale soo dhawaada idin ma ilaabi karaynana aad iyo so marka aan dhameeyo aan dadka oo aan arki doontaan proof oo heli doontaan dadka aan u sameeynay waraaqaha way soo iman doonaan way soo fadhiisan doonaan wayna ka hadli doonaan yaa keenay meesha marka waxaad leeyahay walaalahay marka laakiin inta kasto dadku ay diidan yihiin in kamarada ka hadlaan garamadan wax lagu xashado gar labadii qof aan keenaba way diideen maya kuwaas waxa weeyaan waa niman iska yar waaweyn waxay diidayeen
islaamahoodii inay meelaha ka arkaan meelaha baan filayaa aduu dadkan imka wadna waa dhalinyaro waa wada waa inaad halkaas soo fariisataa dhalinyarada ku xasuusto waad mahadsantahay carre 30 iyo wax ka yar ayaa meeshan soconaysa because the next 30 years oo hadduu dhowr iyo 30 iska qiil badan way adkaanaysaa ma aha yani waxay ka wadaa maya ay fududahay waa ogaay anigu waxaan naftigay hadalkayga saa u arkin macnaha ka wada iska qiilo magaalada iska joogtay waxa aad looga baahan yahay halkan carrow qofka 30 sano hadday dhaafto 30kii ay ahaato maybe 32 inayna dhaafin because halkan marka timaadid 30 kale kuu baahan yihiin 30 kale inaad wadankii ku soo kordhisid wax oo shaqaysid oo taxkay bixisid oo ka mid noqotid Canadianka haddaad duqtahay maxaad samayn kartaa I'm sorry ugu dambeyntii sidii doonta ba ahaato hadalka waan soo gunaanadeena sheekada waan soo badinay telefoonkii ma aha mid khadka ka baxay waa mid barkin yaala mudayar intaan hawsha kala yara wadayno waayo waxaan diidaynaa inay wax isku qasbaan qofkana aan magaranaysaa wax ka sii qaadno inta warqada ka soo qaadna ku dhaano waxbaan ku qabanayna haddana isagoo qof ka soo horeeyay isagii la helo marka kuwana horta nasiibkooda u soo baxay kuwan kalena insha Allah way sida ugu dhaqsaha badan la helayaan inta wixii ka dambeeya ayaan doonayaa inaan marka dambe telefoonka yara furno waxaan leeyahay noo soo gunaanay kale carre you're funny mar kale waxaan leeyahay soo dhawaada don't forget to subscribe like share meesha waan kula joogaa and excuse me carre waxaan leeyahay walaalahay soo dhawaada idin maan ilaabin the best waxaan rabaa continue sameeya CV-giina markasta waxaan rabaa CV fiican qofkii haysta any xirfad electronic waxaan sheegayaa qof yaqaana farsamada gacanta dabka leydharka dadka sameeya dadka makaanikiyada ah dadka maxaa guryaha sidii loo dhisay yaqaan waa number 1 iyo many guryo eedu way farbadayna ma aha wastaadkii meelaha wastaadkii ma aha engineer ba loo baahan yahay aad iyo aad markasta inaad shahaadad haysatid it makes it easy asida cadaanka gaari cad wadato deebo also ay loobina dadka kuwa hore oo naaminay oo soo direen CV-yaashooda oo emailkan isticmaalay dadkaas hadda anaga u wadnaa sheekada waa sida waan u sheegnayba u wadnaa aan furi doonaa waan furaynaa markastana still waxaan rabaa dadka inay continue CV-gooda soo diraan iyo shahaadadahooda waxaan rabaa inaad kusoo dirtaan emailka ku yaala YouTube-ka that's email in the YouTube your CV and everything baasaboorka Soomaaliga it's good yaa idin yidhi baasaboor Soomaali ma soconayo wuu soconayaa whatever passport ay haysatid ayaad ka soo qaadaysaa your passport your CV iyo shahaadadahaaga intaasaan u baahanay emailka ku soo dir always experience iyo waxa ku qoran yahay CV-ga markas resume they don't know resume but they know CV markastana maxaa la dhahaa emailka waa kala xiriiraa dadkan imika aan qaar badan oo aan qaabilay oo iyaga way og yihiin Soomaaliya oo dhan everywhere Soomaaliya ay joogaan maanta marka way og yihiin emailkiina marna ha bedelin mar aan kula soo xiriiro emailkaasaan kaala soo xiriiraya markaasaynu wada hadlaynaa markaasay passwordkana iska bedelin shay yani hasdeena way naga jiifteen wax ma qabanay ma idka jiifin ma anaga shaqadeeda naga beertaraysan telefoonkii baa batay ayaan ku dhex jirnaa the 100 waxa yimid inaan ku tilmaamay maybe 10000 waxa yimid application 10000 application saan idhaahdaa ma wada furi karo ma wada samayn karo soo wayna kala waxa intii aan ka maqnaa waxaan ku jiray doorasho kii ugu rasamay fiican kii wax yaqaana ayaa wax hor helaya ma sha Allah dad wax bartay baa meesha ku jira aad bal waxaan baleeyaa Soomaaliya soo dhawaada Soomaaliya oo dhan waliba de maca cid walba ku jirtaa Soomaaliya say u dhan tahay aad meel walba adduunka ku jirta markaan badan nahayna oo dadka tusno hey intaan subscribers aan haysanaa wax noo sameeya So what Shego is saying behind the camera, subscribe, like, share. muuqaalka aad ku caajisay waan ka raaligelina muuqaalka xiga inagoo isku dub waxaan kaga tagnaa bye waa idin salaanay